agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Axmed Cabdirasaaq Diriye oo ku sugan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa caawa hoteelka Martisoor ee magaalada Ceerigaabo kulan ballaaran kula yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada labaanta ee ku nool magaalada Ceerigaabo. Kulankani ayaa ujeedkiisu waxa uu daaranaa is-xog waraysi iyo soo dhaweyn. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Ceerigaabo oo dhammaantoodba soo dhaweeyay agaasimaha. الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المدرسة قف والبمنصب كي ماموس كوكو سلام يا أرتانيجا عاوة لما فرحات بيتها فرحة دوا مركي يجوه ريسان برعس ضعف وأنا عرقها بحاجة صويغو فرحة الله بعد نوح ويانا إنتنا صاحب مركلام كويش مقالة عرقها وهدان كل جسون نقول أحمد ديريه يجود أنا لسعون أنا ذكيلي إن صوّع عن هبين كلا شيء كيستو رنتي وفرحات وادوين وأنا هنتي عن كلام نقنطونه جود هم قبل سناد يمقال العرقاب بدك ماذا بقى أنت كبعدي وعن ربعون الله وصدق قضابه يرتابته مهمة السفر كي واحد هيدون ندين يسوي يجيد يسوبرفيشن أنا كنت سميني إن مشاريع دي قبلك أنا كفول الني رنتي تقدرون يجيتونا ساحلون يجيتونا de Sanaag waa gobol ballaaran laga gayoon maayo meelo fara badan oo ay baran ka tahay mashaariic fara badan baan ka fulinay madal bilan oo boqoran waxaynu isugu neemay Axmed Cabdirasaaq Diriye agaasima guud Axmed Cabdirasaaq Diriye oo ah runtii nin reer Ceerigaabo dhalinyaro ka mid ah dhalinyaradii xiliyadii ugu dambeysay saaxadda siyaasadda ku soo biiray kana gaadhay martabad runtii ay yar tahay shakhsiyaadka inta badan in deedan lagu gaadho nin dhalinyaro maanta isaga ah in uu maanta martabada noocan siyaasadeed gaadho runtii waxaan leeyahay hambaliyo marti sharafta qiimaha badan labeentii gobolka aqoonyaankii mudankii gobolka agaasime Axmed xubnaha kale la socda ee qandaraasyada qaranka ugu horeeyay xaajiga baarcad oo maxaan wada waxa Facebook laga yaqaan laakiin dhalinyarada sida kale u garanaysa وادي السلام يا أحمد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تبدأ أحمد عبدالرزاق ديرية وأنا نسكب بربارة هين دنيرنا نسلا هين عرقاونا أنا دقيق نلاش كم إذا نكسر هذا قاعد نبرق وشوق حبرشة ديسي وأنا لما قبل كسر شيء ده سنة جيسول بكسر شيء ده وحويان دنيرة قبل كسنة عاو كبهودي sidoo kale waxaan salaamayaa agaasimaha waxa weeyaan guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq Diriye saaxiib waxaan ku leeyahay horta kugu soo dhaweyn meeno Ceerigaabo oo reer Ceerigaabo tahay awalan Allah subhanahu wa ta'ala mahad iskale mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ilqabatida u badan dhalinyarada isugu yimid madashan mar saddexaad waxaan soo dhaweynayaa bogaadin isugu daraynaa agaasimaha guddida qandaraaska Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Diriye waxaan leenahay sida runtii kolle haddana anu iska hadlo nicmo ahaan waxa laga yaabaa madashan inaadan sharafti iyo maamuus soo siiyeen laakiin sababta keentay inaan imaado ayaa ah inaan maqlo markii ugu horeysay mas'uul gobolka Sanaag ka soo jeeda oo gartay inuu la kulmo dhalinyaradii qabatida ahayd inuu la kulmo dhalinyaradii maalmaalka ahayd inuu la kulmo aqliga iyo kartida iyo mustaqbalkiisa ka dambeeyay isagoo ku dhiirigelinaya waxyaabo fara badan bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin ugu horeyn ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala oo inoo suura galiyay inaynu madashan isugu nimaadno caawa ay bishu tahay 19 December ruuxantii aad baan ugu faraxsanahay inaan madal noocan oo kala ah aan ku wada sheekaysano kuna caweyno dhalinyarada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo waxaan rabaa inaan isul taago gobolkan Sanaag ruuxantii waa gobol taariikhi ah wuxuu lafdhabar gobolkeenu u yahay haddii aan isul taago taariikhda gobolka gobolku wuxuu lafdhabar u yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliland wuxuuna ku suntan yahay taariikhda cusub ee Soomaaliland iyo taariikhda hore duuga ahayd ee tan iyo waqtigii xornimada haddii aan taa intaa kaga gudbo anigoo soo koobaya oo aad moodid hadalkeena rag badan iigu horeeyeen waan hadalkana in badan lay reebin
waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhalinyarada degmada Ceergaabo waxaan ruuhantii aan hortiina ka cadaynayaa inaan aad ugu faraxsanayn maanta waqti wada qaadano dhalinyaradu waa asadka kaliya ama hantida ugu qaalisan uu dalkani leeyahay qoliyaha xisaabaadka iyo risaajada sameeyaan waxa ay yiraahdaan 70% ama wax ka badanba Somaliland waa dhalinyaro laakiin waxa xusid mudan waxa jiray maahmaah ama halku dhagacaana waxa loo jiray dhalinyaradu waa mustaqbalka berri laakiin tan iyo hogaaminta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaad moodaa halku dhagaasi inuu meesha ka baxay ama uu yahay gabaabsi waxa cadaatay dhalinyaradu inay tahay mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka berri labadaba waxaan hal qodob baan rabaa inaan aan ku daro halkan waxa wada fadhiya dhalinyaradii reer Ceergaabo dhan waxaan mar walba idinku dhiirigelinayaa ama aan idinku bogaadinayaa ama aan idinku kula talinayaa idinku lana dardaarmayaa mar walba inaad ilaashataan midnimadiina isdhexgalkiina waayo inta badan waxa aad loo mateertaa agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Axmed Cabdirasaaq Diiriye oo ku sugan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa caawa halkan oo hotel Martisoor ee magaalada Ceergaabo kulan kula yeeshay qaar kamid ah dhalinyarada labeenta ee